ahaa ee ku saabsanaa shakhsiyadeyda sida magacayga meesha uu reerku ii degan yahay ee jilib iyo xogta xaaskayga nooca ama qaab dhismeedka wejigayga run ahaantii lacagtaas waxaan dhilay meelo kala duwan sida jilib iyo jamaame oo kale mana isticmaalin marka wuxuu ii sheegay inuu u baahan yahay inuu ku noqdo Jeff uuna isaga ku soo wargeliyo halka ay marayso xaaladda waxaan dareemay inuu doonayo inuu qayb ka noqdo silsiladda xiriirkan kadib hal maalin ayuu i bilaamiyay wuxuuna ii sheegay inuu aadi doono sargaalkii oo uu magaciisa ku sheegay Jeff markii uu u tagayna wuu isoo wacay wuxuuna igu yiri hadda waxaan joogaa xafiiska CIA-da saaxiibkeena sargaalkii Ameerikaanka ahaa wuxuu fadhiyaa horteyda magaciisa waxaa la yiraahdaa Jeff waa qof aad u wanaagsan marka waxba ha walwalin kaliya wuxuu doonayaa inuu ku caawiyo adiga iyo saaxiibadaada doonaya in ay isaga tagaan Soomaaliya kadib Jeff ayaa la igu dhiibay oo igu yiri waa maxay magacaaga waxaan maqlay inaad ka soo jeedo waddanka Tanzania sanadkee ayaa timid Soomaaliya maxay tahay shaqada aad ka qabanaysay halkan Soomaaliya kadib markii aad ku biirtay mujaahidiinta kadib markii uu i weydiiyay dhammaan wixii xog ahaa ee ku saabsanaa shakhsiyadeyda sida magacayga meesha uu reerku ii degan yahay ee jilib iyo xogta xaaskayga nooca ama qaab dhismeedka wejigayga midabka jirkayga iyo dhirirkayga intaba wuxuu ii sheegay inuu isku nidaamin doono dhammaan xogteyda uuna isoo wici doono maalin kale si aan qorshaha u sii abaabulno sida ugu saxsan muddo kadib Jeff ayaa isoo wacay wuxuu bilaabay inuu i weydiiyo su'aalo dhowr ah oo la xiriira saaxiibadeydii qorsheynayay in ay ugu weheliyaan safarka horey ayaan u haystay xogtaada oo dhammaystiran ee hadda waxaad warbixin dheeraad ah iga siisaa saaxiibada ma waxay ka mid yihiin mujaahidiintii hore mise waa kuwo hor leh oo mar dhow u yimid Soomaaliya ayuu i weydiiyay saaxiibadeyda dhammaantood muddo dheer ayay joogaan dhulka jihaadka waxayna yimaadeen xilligii midowgii maxaakiimta islaamiga ayaan ugu jawaabay taasi waxay ka dhigan tahay in ay yihiin xubno aad muhiim u ah sax sidaas ayuu si amakaag leh iigu yiri haa waa dad aad muhiim u ah marka loo eego shakhsiyadooda ayaan ku yiri aad buu ugu riyaaqsanaa waxa aan u sheegayay wuxuu yiri dhageyso dadkaas aad bay muhiim noogu yihiin annaga waana u baahannahay ee sideen ku qaban karaa raggaas qorshaheena waa in aan doon ku baxnaa oo aan aadnaa Kenya ayaan ugu jawaabay mar kale ayuu si toos ah ii weydiiyay sida uu ku qaban karo raggaas kadibna ugu dambeyntii wuxuu yiri waxba ha walwalin annaga jawaasiis ayaa noogu diyaarsan Kenya marka waxa ugu muhiimsan ee aan ka doonayno adiga waa in aad ii damaanad qaado in aan raggaas heli doono waxaan ugu jawaabay taasi wax dhib ah ma leh haddaad u ooman tahay raggaas waad heli doontaa markaan intaas u damaanad qaaday aad buu u sii farxay wuxuuna yiri waxaan hadda ka doonayo waa in aad kulmiso oo aad ururiso dhammaan saaxiibada adigoo hubsanaya in dhammaantiin aad leedihiin hal hadaf oo ah ka tagitaanka Soomaaliya si maalinta la idin qaadayo uusan qof idin kamid ah uusan u dibdhicin ma ka soo bixi kartaa hawshaas haa waan ka soo bixi karaa ayaan ugu jawaabay maalintaas wuxuu ii balan qaaday in uu ii soo diri doono lacag kadibna Maxamed ayuu iigu soo dhiibay $500 kaas oo lacagta iigu soo diray qaab EFC ah haddaba xiriirkeena sidaas ayuu baaqi ku sii ahaa aniga iyo Maxamed ilaa laga gaaray waqtigii aan xiriirka la sameyn lahaa Jeff wuxuu ii sheegay in markii aan isku dayay in aan kulmiyo saaxiibadeyda in dhanka kale isagana uu isku dayay in uu xiriiro ka raadiyo Kenya kadib markii aan isku raacnay in aysan suuragal ahayn in raggan Muqdisho ay iman karaan sidaas darteed qorshaha uu isagu damacsanaa wuxuu ahaa in aniga aan doonayay in aan soo wado dadkaas oo aan u soo qaado Kenya dhanka kalena uu Jeff halkaas ku diyaariyo sidii dadkaas Kenya gudaheeda loogu qaban lahaa markaas oo dhanna waxaan ku fikirayay sidii aan dadkan uga heli lahaa lacag waxaan ku fikiray in ay habboon tahay in aan siiyo macluumaad run iyo been isugu jira si aan lacago fara badan oo cadaan ah kaga helo kadib markii uu go'ay xiriirkii naga dhaxeeyay Maxamed muddo hal bil ah ayuu isoo wacay maalin maalmaha kamid ah wuxuuna i weydiiyay iska waran waa sidee xaaladda wax waliba way hagaagsan yihiin baan ku iri ka waran saaxiibada ayuu i weydiiyay dhammaantood waxay u diyaarsan yihiin in ay baxaan jilib waan ka soo tagay laakiin wali waxaan ku guda jiraa diyaar garowgii safarkeena ayaan ku iri marka waa annaga Soomaa ahan cid dib u dhaca idinku haysa ayuu igu yiri haa idinka ayaa dib noo dhigaya ayaan ugu jawaabay aad buu u faraxsanaa wuxuuna ii sheegay inuu aadi doono Jeff uuna kala soo hadli doono diyaar garowgii ugu dambeeyay ee safarkeena markii uu aaday xafiiska Jeff uu isoo wacay kadib markii loo soo sheegay in abaabulka safarkeena uu u socdo si wanaagsan aad buuna u faraxsanaa durbaba waxaan ku soo noqday jilib halkaas oo uu mar kale igula soo xiriiray iguna yiri qorshihiina ah in loo gudbo dhanka Kenya uu nala wanaagsan yahay diyaar baana u nahay in aan idin qaadno Kenya meeshaas oo aan ku diyaarinay qaar kamid ah shaqaalaheena kuwaas oo halkaas idinku qaabili doona sidoo kale qiyaarka ah in doon loo adeegsado safarka isna wuu nala fiican yahay waxaan u baahannahay in aan sii wadno
qorshaha aad noogu soo gacangelinayso raggan waxa keliya ee aanan hubin waa sida ugu saxsan ee aan idinku heli karno sababtoo ah waxaad u socotaan badda bartankeeda wax waliba oo lama filaan ahna way dhici karaan wuxuu si faahfaahsan igu sharxay in ay jiraan dad saaxiibadiisa ah oo CIA-da ka tirsan oo ku sugan Kenya sidoo kalena ciidamada Mareykanka ay sidoo kale joogaan meel u dhow jasiiradda Lamu isla markaana si caadi ah ay ugu roondeeyaan badda sidaas darteed waxaan heli doonaa caawinaad fiican haddii loo baahdo arrintan ugu muhiimsan anaga waxa waaye buu yiri in loo gudbo dhanka Kenya ugu dambeyntii wuxuu ii sheegay in ay hayaan qorshe fiican ayna isoo siin doonaan faahfaahinta marka lagu wado in aan dhaqaaqno waxa isagu markaas ku adkaa waxay ahayd in maalinta safarkeena uu doonayay in uu ogaado meesha aan ka tagayno marka aan ka soo dhaqaaqayno jilib meesha aan ka raaci doono doonta iyo meesha aan kaga degi doono marka aan gaarno xeebta Kenya wuxuu ku andacooday in haddii uu ogaado intaas oo dhan ay u fududaan doonto in uu helo ayna fududaan doonto sidoo kale in uu nagu soo xiro saaxiibadiisa ku sugan gudaha Kenya waxaan ka doonayaa in aad mas'uul ka noqotid dhammaan arrimahan diyaar ma u tahay ayuu igu yiri ها diyaar baan ahay baan ugu jawaabay ma ballan qaadaysaa in dadkan aad geynayso Kenya marka aad halkaas geysana aad nala soo xiriiraysid si aan u ogaano halka aad ku sugan tihiin ayuu i weydiiyey ها diyaar baan u ahay dhammaan arrimahaas ayaan ugu jawaabay arrinta qusaysa lacagta waxaad ku heli doontaa qaab isweydaarsi ah oo lacagta iyo raggan ayaan isku bedelan doonaa ogowna hal xaqiiqo oo ah in lacagta aad doonayso aan gacanta ku hayo ma ahan wax hadda kadib aan raadin doono aniga iyadoo kaasha gacanta ku haya waxaan xusuusiyey inaan Maxamed ku wargeliyay in uu ii soo diro $40,000 si hormaris ah si aan anigana ugu wareejiyo raggan Maxamed isna wuxuu bilaabay in uu niyadda ii dhiso una ii sheego in Jeff uu hayo lacag badan sidaas darteed aysan ahayn in aan arrimahaas ka walwalo gabi ahaanba haddaba iyadoo ay sidaas tahay aniga waxaan u sheegay in wax dhiba aysan ku jirin oo aan raggaas geyn doono goobta lagu balansan yahay marka ugu horeyn aan helo lacagta kaashka ah sidaas darteed qodobkan waan isku raacnay markii ugu dambeysay ee uu soo wacay anigoo jooga jilib Jeff wuxuu igu yiri waxaan ka doonayaa inaad igu soo wargeliso taariikhda saxda ah ee uu ku beegan yahay safarkiina iyo maalinta aad dhaqaaqi doontaan xiriir telefoon oo toos ah ayaan sameyn doonaa xiriirka kala dhaxeeya Maxamedna waa la joojin doonaa aniga iyo adiga ayaa si toos ah u xiriiri doona sababtoo ah waxaan ku qasbanaan doonaa in aan galo xafiisyo kale oo Maxamed uusan fasax u haysan okay taasi wax ku jaban male ayaan ugu jawaabay wuxuu intaas ku sii daray waxaan ka doonayaa in aan kuu soo diro qalab kaas oo noo suuragelin doona in aan idin la socono wax kasta oo aad ku safraysaan ha noqdo gaari ha noqoto doon ama diyaarad waxay noo suuragelin doontaa in aan idin la socono haddii ay wax idinku dhacaan idinkoo badda ku jira ama gaari saaran waan awoodi doonaa in aan idin caawino waxa noogu muhiimsan annaga waa in aan helnaa saaxiibada waana ku soo siin doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qalabka iyo meesha aan kugu soo hagaajinayno waa okay ayaan ugu jawaabay haddii aan shay dhigno meel gudaha jilib ka tirsan ma awoodi lahayd in aad hesho shaygaas ma taqaanaa wadooyinka jilib ayuu igu yiri ها ayaan ugu jawaabay ku dhawaad hal toddobaad kadib Maxamed ayaa isoo wacay wuxuuna ii sheegay in uu yeeray Jeff kadib markii uu aaday xafiiska Jeff Maxamed uu isoo wacay wuxuuna igu yiri qalabkii waxaan dhignay magaalada jilib gudaheeda marka aad ka tagayso kontaroolka jilib oo aad u jihaysanayso jihada Kismaayo waxa halkaas ku yaala guri weyn oo mar hore la isaga guuray xitaa haddaad ka joogto masaafo fog si fudud ayaad ku arki kartaa gurigaas waa halkaas meesha aan ku dhignay qalabka ma aadi kartaa oo ma kala soo bixi kartaa qalabka gurigaas waxaan bilaabay in aan isku dayo in aan fahmo dhismaha uu ka hadlayay kadibna ugu dambeyntii waxa igu soo dhacday in dhismaha uu ka hadlayo uu yahay dhismaha Caashaneero kaas oo ku yaala meel u dhow kontaroolka magaalada jilib qalabka waxaan soo gelinay boorso ka samaysan plastic boorsada dhexdeeda waxa ku jira maro cusub taas oo lagu soo duuduubay qalabka dooro waqti munaasab ah kadibna aad halkaas markaas waad la soo bixi kartaa qalabka ayuu yiri okay waan aadi doonaa waana la soo bixi doonaa ayaan ugu jawaabay habeenkaasba waxaan qorsheeyay sidii aan ku aadi lahaa waxaana aan dhaqaaqay waqti qiyaas ahaantii 2 saac oo fiidnimo ah wuxuu ii sheegay in qalabka uu yaalo meel u dhow albaabka xiga dhanka midig waxaan fiiriyay dhankayga midig waxaana arkay xoogaa warqado boorsooyin ah iyaga ayaan baaray kadibna markii aan baaray 2 boorso waxaan qalabkii ka helay boorsadii saddexaad ee aan furay boorsada gudaheed waxa ku jiray qalabka oo lagu soo xirxiray marada saaronka kadib markii aan furfuray waaba kan qalabkii aan ka soo helay boorsada waxaan bilaabay inaan isweydiiyo talow muxuu ahaa qalabkan laakiin kadib markii aan akhriyay shaashadiisa ayaan ogaaday inuu yahay GPS naftayda ayaan dejiyay waxaana go'aansaday inaan gurigayga u soo qaato habeenkaas Jeff ayaa isoo wacay oo igu yiri ma heshay GPS-kii ها waan helay ayaan ugu jawaabay maradii meesha ma kaga soo tagtay ayuu i weydiiyay ها waan ka soo tagay sida aad horeyba iigu sheegtay ayaan ugu jawaabay qalabkaas waa GPS caadi ah marka waxba ha walwalin qalabkaas wuxuu iga caawin doonaa in aan idin la socdo si ka duwan qalabyada kale midkan ma lumiyo networkiisa
haddii aad saaran tahay doon tusaale ahaan waan garan karnaa meesha rasmiga ah ee aad kaga sugan tihiin badda qaar ka mid a saaxiibadayda oo hadda jooga halkan muqdisho ah waxay ka shaqayn doonaan qaybta satellite-ka waxaana maalinta safarkiina aan diyaar u ahay in aan idiin huro hurdadayda si aan u ogaado meesha aad gaarteen markaad gashaan badda GPS kaas wuxuu ii suuragelin doonaa inaan ogaado meesha rasmiga ah ee aad joogtaan iyo halka aad maraysaan haddii ay wax yimaadaan ayuu yidhi jeff sidoo kale wuxuu mar kale isiiyey amar kale oo ah in aan soo iibiyo telefoon cusub oo maalinta safarka aan ku daarayo GPS-ka wuxuu kaloo igu towjiihiyey in aan labadooduba si wadajir ah u geliyo boorsadayda iyo dhammaan alaabtayda kale ee aan wato markaas xitaa haddii qof ka mid a saaxiibadayda uu ka shakiyo waxaan dhihi lahaa waa iska GPS caadi ah intaas kadib wuxuu bilaabay in uu igala hadlo qadiyadda ku saabsan lacagta kaashka ah ee aan dalbanayey waana u caddeeyey mar kale inaan doonayo $40,000 kadibna wuu ii jawaabay isagoo ileh waxba ha walwalin waa laga howlgali doonaa arrintaas dhammaan diyaargarowgeyna dhanka Kenya waa diyaar laba kooxood ayaan heegan gelinay haddii aad wax badan ku jirtaan badda ciidamada Ameerikaanka ah ee ku rondaynaya badda ayaad isheli doontaan haddii aad badda ka baxdaan oo aad dhulka soo gashaanna waxaa idiin qaban doona ciidamada Kenya sidoo kale waxaan soo xulanay mid ka mid ah jawaasiisteena oo idiin qaabili doona waxaana kadib marka uu idiin helo uu aadi doonaa isla markaana uu raadin doonaa askarta kale kuwaas oo imaan doona meesha ama nuqdada aad kaga soo degateen badda waxay iska dhigi doonaan sida in ay dhaqdhaqaaqiina si hoose ula socdeen oo kale adna aadan waxba kala soconin waxa meesha ka socda dhammaan hawshu waxay ahaan doontaa sidii aan u qorshaynay marka saaxiibada ma ogaanayaan in aad qayb ka tahay shirqoolka marka ay ku qabtaanna waxay kugu qaadi doonaan diyaarad helikobtar ah waxaa lagu gudbin doonaa meel kale kadibna waxaa lagu soo celin doonaa muqdisho kadib markii uu sharaxay dhammaan xogta safarka wuxuu yidhi waxaan kuu soo diri doonaa lacagtaana kuma jirto $40,000 ee aad dalbatay hawalwalin waxaan kuu diyaarinay lacag fara badan waxaadna dalkaaga dib ugu noqon doontaa adigoo taajir ah hadda waxaan doonayaa in aan kuu soo diro lacag aad u isticmaalaysid umuuraha qoyskaaga iyo kuwaaga gaarka ah lacagta kale ee aad dalbatayna marka ugu horreyso ee aad raggaas nagu soo wareejiso ama ay gacanteena ku soo dhacaan ayaad heli doontaa $40,000 waxba ma ahan waxaan kuu ballan qaadaynaa in aad dalkaaga ku noqon doontid adigoo taajir ah hadda waxaan doonayaa in aan saaxiibka Maxamed kuugu dhiibo xoogaa lacag ah si uu kugu soo diro intaas kadibna sii wata qorshaha safarkiina marka aad timaadaan Kenyana dhammaan riyooyinkaada way kuu rumowi doonaan intaas kadib Maxamed ayaa i weydiiyey qaabka uu igu soo diri karo lacagta hadday tahay qaab xawaalad ahaan ah ama habab kale waxaan u sheegay in aanan magaalo joogin ayna wanaagsan tahay in uu igu soo diro qaab EVC ah cabasho ayuu ii muujiyey isagoo ii sheegaya in lacagtu ay badan tahay ayna adag tahay in lagu soo diro EVC laakiin waxaan u sheegay inaanan haysan khiyaar kale oo lacagtaas igu soo gaari karto okay si tartiib ah ayaan tiro yar marba kuugu soo dirayaa ilaa aad ka helayso dhammaan lacagta ayuu yidhi wuxuu bilaabay inuu ii soo diro lacagta in yar oo markiiba $300 ah waxaana durbaba marka ay ii soo dhacdo uu ii sheegayay in aan faarujiyo mobilka oo uu soo wado lacag kale oo dheeraad ah lacag badan ayaa ku hartay si faaruji mobilka dhaqso si aan lacag kale oo dheeraad ah kugu soo diro ayuu idhahayay anigana sidaas uu ii sheegay ayaan sameynayay durbaba marka aan lacagta helo isla markiiba waxaan ku sii tuurayay meel kale wuu waday hawshan ilaa uu iga soo diray lacag mar kale isku geeyo dhan $2,000 halkaas ayuu ku joojiyey badanaa wuxuu ii soo dirayay kiskis yar subaxii galabtii iyo fiidkii markii uu gaarsiiyey 2,000 ayuu joojiyey wax soo diristii ma intaasba ayaan weydiiyey maya weli waxbaa kuu dhiman oo aan kuu soo dirayaa ayuu yidhi maalintii xigtay wuxuu ii soo diray $500 oo dheeraad ah marka sidaas darteed guud ahaan lacagta uu ii soo diray cadadkeeda waxay ahayd $2,500 waa intaas dhammaan lacagta la iigu kaasoo dhiibay ayuu yidhi dhib ma leh dhammaan diyaargarowgeennii ku saabsanaa safarka waa diyaar dhammaan saaxiibadaydana waa heegan ayaan u sheegay hadda waxaan haystaa lacagtii oo jeebka iigu jirta waxaana bilaabay in aan qorsheeyo wixii aan ku qaban lahaa lacagta qorshaha aan maskaxda ku hayayna wuxuu ahaa in aan gaari soo iibsado waxaan ku fikiray in aan bilaabo ganacsi laakiin waxaan go'aansaday in ay iga fiican tahay in aan soo iibsado gaari kadib markii aan helay lacagta $2,500 waxaan ogaaday in lacagta aan haysto aysan gaari ii goynin maxaan sameeyaa oo aan lacag dheeraad ah ku heli karaa ayaa nafteyda weydiiyey anigoo og in $2,500 oo keliya ay jeebka iigu jirto kadib markii aan intaas isweydiiyey waxaan ogaaday in lacagta ugu yar ee aan u baahnaa ay ahayd ugu yaraan $3,000 sidaas darteed waxaan wacay Maxamed mar kale waxaana ku dhahay dhegeyso waxaan doonayaa in aan safarkeena ku dhaqaaqno qiimaha lacageed ee aan u baahannahay in aan siino doonta waa $1,000 qofkiiba dhammaan saaxiibadeyda way haystaan lacagtaas oo gacantooda ayay ku jirtaa marka laga reebo anigana ma haysto lacag cadadkaas dhan sidaas darteed waxaan u baahanahay $1,000 lacagtii aad horay iigu soo dirteen waxaan ku bixiyey qoyskayga sida markii horeba aad igula taliseen sidee taas suuragal ku tahay ayuu si la yaab leh u yidhi xaaladda halkaas ayay taagan tahay lacagtiina goor hore ayaan isticmaalay baan ku idhi run ahaantii lacagtaas waxaan dhigay meelo kala duwan sida jilib iyo jamaame oo kale mana isticmaalin marka wuxuu ii sheegay inuu u baahan yahay in uu ku noqdo Jeff
uuna isaga ku soo wargeliyo halka ay marayso xaaladda kadibna uu jawaab isoo siin doono sababtoo ah waxaan u sheegay in aan u diyaarsannahay in aan dhaqaaqno sidaas darteedna uu jawaab na soo siin doono sida ugu dhaqsiyaha badan maalintii xigtay ayuu isoo wacay isagoo sheegaya inuu ku sugan yahay xafiiska jeef wuxuuna iga codsaday in mar kale aan u sharaxo xaaladda waxaan ku bixi doonaa doon waxayna u baahan tahay doonta qiimo dhan $1,000 qofkiiba ayaan ku iri jeef markii aan sidaas dhahay jeef wuu i dejiyey wuxuuna igu yidhi tani ma ahan arrin weyn wuuna ballan qaaday inuu ii soo diri doono lacagta isla maalintaasna wuu ii soo diray sidaas darteed marka $1,000 ee aan helay lagu daro lacagtii aan horay u haystay ee $2,500 waxay cadadka guud ee lacagtayda ka dhigaysaa $3,500 oo lagu sii daray $500 oo bilowgii hore ay siiyeen taas oo tirada guud ka dhigaysa $4,000 waana intaas cadadka lacagta guud ee aan ka helay jeef intaas kadib waxaan soo iibsaday gaarigii waxaana dib ugu soo noqday noloshaydii caadiga ahayd ee jilib muddo kadib haddana waaba kan mar kale anigoo weli u hanqaltaagaya lacag dheeraad ah waxaan isweydiiyey haddii ay habboon tahay in aan isku dayo in aan lacag dheeraad ah ka raadiyo raggan waa jeef iyo kooxdiisa waxaana ku fikiray oo aan naftayda ku dhahay waan hubaa xilligan in maxamed uu i raadinayo kadibna maalin ayaan go'aansaday in aan waco haye maxamed xaaladda ka waran ayaan ku dhahay sidee wax u jiraan maxaa ku dhacay qorshihii naga dhexeeyey mar hore ayaan kuu soo diray lacagtii aad codsatay maxaad iga filaysaa inaan u sheego jeef iyo saaxiibadiisa aniga halkan muqdisho ah shaqo ayaan ku haystaa waxaana run ahaantii i gelisay xaalad ciriiri ah ayuu si caro leh igu yidhi isdeji qorshaheennii wuu fashilmay xaaladduna way xumaatay anigu waxaan rabaa inaan iskayga u baxo sababtoo ah al-shabaab waxay mar hore ogaatay in aan waday qorshaha aan ku tahriibinayo dadka isla markaana aan ahaa maskaxda ka dambaysay mashruucan sidaas darteed waxaan kaa codsanayaa inaad ii soo dirto xoogaa lacag oo dheeraad ah waana idiin imaanayaa ayaan ku idhi okay haddii aadan xaqiiqdii noo heli karin raggan kale adiga imow muqdisho ayuu igu yidhi waayahay ee ii soo dir xoogaa lacaga ayaan ugu jawaabay xaqiiqdii ma hayo wax lacag ah oo aan kuu soo diro mana hayo geesinimo aan mar kale ku hor istaago jeef si aan lacag u weydiiyo ayuu igu yidhi muddo ku dhowaad 2 toddobaad ah kadib ayaan haddana wacay mar kale dhegayso saaxiib xaaladdu ma wanaagsana maxaan kuu qaban karaa ayuu yidhi lacag ii soo dir waan kuu imaanayaaye ayaan ugu jawaabay ma jirto waddo aan lacag kugu soo diro haddii aad tahay nin daacad ah oo ay run kaa tahay waxaad sheegayso imow muqdisho marka aad soo gaarto halkan ayaa lagu siin doonaa lacagta aad doonayso laakiin hadda ma hayo awood aan mar kasta lacag kugu soo diro way igu adag tahay in aan dib ugu noqdo jeef oo aan lacag kaaga doono sababtoo ah ilaa iyo hadda ma aanan samaynin wax horumar ah oo ku saabsan shaqadii naga dhexaysay welina mugdi ayaa ku jira masiirkeeda ma haysto wax qarash ah oo aan ku imaado muqdisho ee isii khiyaar kale ayaan ugu jawaabay waxaa jira qaar ka mid a saaxiibadayda oo u shaqeeya hay-adda world vision sidayda oo kale waxayna joogaan kismaayo waa macquul in ay ku caawin karaan ee ma aadi kartaa kismaayo ayuu igu yidhi waa sidee dhulka sidee suuragal ku tahay in aan tago kismaayo sideese macquul ku tahay in aan kaga gudbo kontaroolada cadowga ayaan weydiiyey adiga halkee joogtaa hadda ma u dhowdahay jamaame ayuu i weydiiyey haa ayaan ugu jawaabay kadibna wuxuu yidhi haddaba aad kismaayo marka aad tagto kismaayo si fudud ayaad ku sii aadi kartaa muqdisho ama xitaa aad ku aadi kartaa kenya si run ah ayaan kula hadlayaa baan idhi xitaa ma aadi karo kismaayo ha u malaynin in ay ii fududdahay hagaag saaxiibadayda oo jooga halkaas ayaan weydiinayaa waana arkaynaa haddii ay hayaan habab kale oo ay kugu caawin karaan ma raaci kartaa baabuurta caadiga ah ee shacabka ee aadaya kismaayo ayuu haddana i weydiiyey maya ma raaci karo ayaan ku dhahay hal maalin kadib wuu isoo wacay wuxuuna igu yidhi dhegayso waxaan hayaa kuwa saaxiibadayda ah oo ka soo bixi kara magaalada kismaayo islamarkaana imaan kara tuulo yar oo u dhow buula guduud ayuu igu yidhi ma xusuusto magaca tuuladaas uu ii sheegay marka wuxuu ii sheegay in saaxiibadiisa ay gaari ka soo qaadanayaan kismaayo ayna soo aadayaan tuuladaas yar ee u dhow buula guduud waxay ku soo safri doonaan gaari caadi ah si fudud ayayna u awoodi doonaan in ay kaa gudbiyaan kontaroolada cadowga sababtoo ah waxay haystaan kaarar aqoonsi waxayna u shaqeeyaan shirkado caan ah marka iyaga ayaad la gudbi doontaa intaas kadibna waxay kugu caawin doonaan in aad u soo baxdo muqdisho arrinta kuugu muhiimsan adiga waa inaad u gudubto kismaayo kushavuka na wao wao ndo watakusaidia sasa kama utasafiri kuja Mogadishu kwa namna yote wanajua wao sasa lakini kitu muhimu wakuvushe tu pale ufanyaje ufike Kismayo.